والشباب كانوا كمان هذا سيزون هذا كمان على برتو والشباب وعدد شباب مشقية وعدد مسج إن هلك الشباب ودنا كمان أي شباب كيرادان أنا كل جيرو والشباب ما أنتي ومالوين توعنا وناكسنا قيارتها وضعن كو صاحبنا يويد الكيمبا ميرو البوها جوكتان وحن يدل لنا وقتي قايدين وحنادو هداد نقو حسوبتها هاي فرق جنبالينكا السيادو نقاتل قفكو غوري داودا موقالدا يحوقتا سرتي ان سو غدبنا هداد صاحبنا لا تهينا إلهي هكو بركيه إلهي أمورها الله دايها سالو إلهينا أولاد هكو بركيه هداد أولاد دون تهينا إلهي أولاد wanaagsan ha kuu sahlo haddaad guurdoon tahayna ilaahay guurkii mustaqbalka ha kuu wanaajiye leegta lacag maahe leegta ku dhufo xaasidka waxaa leenahay xaasidow xoogga beel oo ilaahay cuquba kugu rid maxaa yeelay xaasidka ma liibaanaya adduunye iyo aakhiro wa min sharri xaasidin idaa xasad alxaasid laa yaflax ducada waxaan ka dhigan doonaa qaybaha dambe hase yeeshee waxaan idiin soo gudbin doonaa xog muhiim ah oo ku saabsan canshuur bixiyaal iyo weliba canshuur qaadayaal hay-adda nisa ee xirtay ayadoo lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab kuwaas oo ay ku jiraan saraakiil muhiim ah oo lafdhabar u ah ganacsiga Soomaaliya haddaba xogtaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa hadduu Allah awood leh uu saamaxo ayadoona hay-adda nabad sugidda ay sirdoonka qaranka Soomaaliya muddooyinkii dambe ay xirxireysay shakhsiyaad lagu eedeynayo in gacan saar ay leeyihiin dagaalyahanada al-shabaab qaarkoodna uu sheegay nin lagu magacaabo Maxamed Xaajow oo muddo la shaqeynaya hay-adda Nisa magacyadiisa kalena la yiraahdo Ilka Case Cadaawe oo maxkamadda ciidamada markii dambe ay ku xukuntay dil toogasho ah kaas oo muddo ka hay-adda Nisa isla markaana raadinayay Ilka Case oo isla asigii uu ahaa isla markaana wuxuu sidoo kale ahaa madaxii amniyaadka ee dagaalyahanada al-shabaab ee gobolka Banaadir muddo fog taas waxay keentay in Ilka Case uu bixiyo xog fara badan waxaana dhawaan hay-adda Nisa ay soo bandhigtay sida aad la socotiin oo muuqaaladii hore aad ku daawateen fanaan ahaa madaxii fanka ee gobolka Banaadir kaas oo la yiraahdo Garaad isla markaana sheegay in 2013 uu ku biiray dagaalyahanada al-shabaab waxaana sidoo kale fanaankan uu sheegay inuu ka tirsanaa qaybta maaliyadda iyo weliba qaadista canshuuraha waxaana taas ay keentay in hay-adda Nisa hadda ay xiraan madaxii ganacsatada gobolka Banaadir ama gudoomiyihii rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir iyo ku-xigeenkiisa xog muhiim ah oo aan helnay waxay sheegayaan in fanaankan Garaad lagu magacaabo sheegayna in 2013 uu ku biiray dagaalyahanada al-shabaab qaybta qaadista canshuuraha inuu sheegay gudoomiyaha rugta ganacsiga oo mar dhow la magacaabo isla markaana uu sheegay in uu ka tirsan yahay dagaalyahanada al-shabaab dhaqaalahana asiga uu soo diri jiray taas oo keentay in hay-adda Nisa ay qabato gudoomiyihii rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir iyo ku-xigeenkiisa dhawaan idaacadda afka Mareykanka ku hadasha qaybteeda Soomaaliga VOA-da waxay baahisay warbixin ku aadan in gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga ee Soomaaliya ay soo magacaabeen dagaalyahanada al-shabaab waxaana ay sidoo kale ay tilmaamtay VOA-da in dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay ka codsadeen madaxda rugta ganacsiga ee Soomaaliya in la siiyo wakiilka ama gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir isla markaana ay ka aqbaleen hoggaanka rugta ganacsiga ee Soomaaliya in ay siiyaan dagaalyahanada al-shabaab madaxa ama gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir waxayna VOA-da warbixinteeda ay ku sheegtay ayna wareysatay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida oo sheegaya in ninkan loo magacaabay rugta ganacsiga Soomaaliya aan raadey rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir uu ka yimid dhawaan degmada Xaradheere ee gobolka Mudug isla markaana uu ka tirsan yahay dagaalyahanada al-shabaab waxaana ganacsatadaasi la wareystay ee sidoo kale intaasi ay sii raaciyeen in muddooyinkii dambe uu jiray isqabqabsi xagga ganacsiga ah ee gobolka Banaadir taasna ay keentay in ninkan loo magacaabay gudoomiyaha rugta ganacsiga ay dagaalyahanada al-shabaab ay soo magacaabaan ayna soo farageliyaan khilaafka ganacsatada gobolka Banaadir ka dhex jiray maadaama cabasho iyo weliba dacwo ay u aadeen deegaanka Tooro kala hore ganacsato ka tirsan kuwa gobolka Banaadir oo ka cabanaya rugta ganacsiga qaybteeda gobolka Banaadir waxaana amar ay soo bixiyeen dagaalyahanada al-shabaab gaar ahaan madaxa amniyaadka ee dagaalyahanada al-shabaab ahna ku-xigeenka guud ee amiirka al-shabaab Mahad Karkata in lagu magacaabay gudoomiyaha
rugta ganacsiga ee gobolka banaadir kaas oo aan muddo fog ku guda jirin ganacsiga gobolka banaadir iyo weliba midka Soomaaliya laakiin gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka banaadir oo VOA-da ay macluumaadkiisa ay gudbisay waxa xilligaasi uu sheegay in warkaasi uusan waxba ka jirin isla markaana muddo fog uu ku dhex jiray ganacsiga gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliya Maxamuud Cabdigariin Gabeere oo eedeymaha loo soo jeediyay ganacsatada gaar ahaan rugta ganacsiga VOA-da xilligaasi ay ka wareysatay wuxuu sheegay in uusan jirin warkaasi isla markaana uu yahay dacayad laga fidinayo ganacsatada Soomaalida wuxuu ka gaabsaday xiriirka ay la leeyihiin al-shabaab inuu faahfaahin ka bixiyo Maxamuud Cabdigariin Gabeere xilligaasi laakiin hay'adda NISA ayaa waxa la sheegay inay wareysatay fanaankan garaad lagu magacaabo isla markaana muddo ku guda jiray fanka Soomaaliya ahaana agaasimihii waaxda fanka oo muuqaal laga soo duubay uu ku sheegayo inuu ka tirsan yahay dagaalyahanada al-shabaab gaar ahaan qaybta aruurinta canshuuraha ama gudbinta macluumaadka canshuuraha iyo sidoo kale bixinta lacaga al-shabaab ay u soo diri jireen waxaana la sheegay in fanaankan uu sheegay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka banaadir inuu ka mid ahaa shakhsiyaadka lacagaha u soo dhiibi jiray laguna amri jiray inuu ka soo qaado lacagaha dabadeedna sidaasi uu sii siin jiray dagaalyahanada al-shabaab qaybta amniyaadka ee ka howlgasha gobolka banaadir gudoomiyahan rugta ganacsiga ee gobolka banaadir ayaa hadda u xiran hay'adda NISA kaas oo galinkii dambe ay shalay ciidamada NISA ay qabteen asiga iyo ku-xigeenkiisa waxaana la weydiinayaa su'aalo la xiriira tuhunka ku aadan in ay soo magacaabeen dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya iyo dalal lacageedka Afrika iyo waxa ka jira ama xiriirka ay leeyihiin mid nooc uu yahay si kastaba ahaatee ganacsatada gobolka banaadir ayaa si weyn kaga cabanayay canshuuro tiro badan oo ay ka qaadaan dagaalyahanada al-shabaab waa qofka ganacsatada ah degada Muqdisho al-shabaab ay og yihiin gawaarida uu kala soo dego ama badeecada uu kala soo dego inta kunteerar ay tahay waliba nooca ay tahay ayadoo sidoo kale ganacsatada la hor dhigo inta shixnadooda uu kala soo degay degada Muqdisho isla markaana loo sheego in canshuurta ama waxa laga doonayo ama lacagta laga doonayo tirada ay la eg tahay waxa shabaab ay isku miisaamaan ganacsadaha maciishada ama waxa uu kala soo degada Muqdisho iyo waliba lacagta ee ka qaadaan waa wax isku miisaaman waxayna ganacsatada si weyn ee ula yaabi jireen xogtan waa xogtooda cidda bixisa waxaase hadda NISA ay tuunsan tahay in xogtan ay bixin jireen gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga ee gobolka banaadir iyo ku-xigeenkiisa hadda u xiran hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya ee NISA muddooyinkan dambe waxay xirxiraysaa dad badan oo lagu tuunsan yahay inay la shaqeeyaan dagaalyahanada al-shabaab kuwaasi oo lala xiriirinayo in qaarkoodba ay ka tirsan yihiin dowladda Soomaaliya kol hore duqa Muqdisho ahaana gudoomiyihii gobolka banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso ayaa lagu dhex dilay xafiiskiisa gobolka banaadir waxaana dilkaasi loo adeegsaday ismiidaamin ama qarax goobta la dhigay inkastoo dowladda ilaa hadda faahfaahin cad oo shacabka ay ku qanci karaan aysan keenin marka laga reebo gabar aragga naafa ka ah oo ka tirsaneed waaxda ama ahayd agaasimaha naafada gobolka banaadir oo ay sheegtay dowladda inay isqarxisay laakiin dowladda maysan keenin caddeemo shacabka ay ku qanci karaan laakiin dadka Soomaaliyeed waxay si weyn ay u tuunsan yihiin hay'adaha amniga xafiisyada dowladda wasaaradaha iyo waliba qaar ka mid ah baarlamaanka Soomaaliyaba inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab ama gacan saar ay la leeyihiin General Yusuf Indhacde ayaa shalay sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka buuxaan dagaalyahanada al-shabaab oo ayna ku jiraan baarlamaanka Soomaaliya golaha wasiirada iyo waliba saraakiisha ciidanka kuwooda ugu sareeya laakiin shacabka oo aan ka mid ahay adigana aan ka mid tahay waxa dhamaanteen aan wada qabnaa tuhun ku aadan in shabaab aysan jirin meel ay ka maran yihiin oo ay ku jiraan baarlamaanka wasiirada madaxtooyada iyo waliba meel walba xafiis dawladeed ah iska badaa ganacsiga iyo waliba waxbarashada laakiin waxa muhiim ah dawladda intaysan u dhaqaaqin ganacsiga iyo ganacsatada iyo waliba xarumaha waxbarasho waa in dawladda ay soo qabataa kuwa ku jira baarlamaanka ee la sheegay inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab kuwa ka mid ka golaha wasiirada kuwa ku jira madaxtooyada yeesan ku mashquulin shacabka marka hore dawladda waa inay soo qabataa dagaalyahanada al-shabaab kuwa la shaqeeya ee ku jira xafiisyadooda markaas ay shacabka ku qanci karaan in kuwa shacabka ah la soo qabto hadda waxaan idin soo gudbin doonaa xog kale oo aan idin sheegnay dhawaan inay heshay hay'adda NISA liis dheer oo uu sheegay Maxamed Xaajow ilka case madaxii amniyaadka al-shabaab kaas oo ka mid ahaa dadkii lagu aas-aasay al-shabaab kuwaasi waxaana shakhsiyaadka uu sheegay iyo waliba dadka uu sheegay ay ka mid yihiin baarlamaanka golaha wasiirada iyo waliba xarunta madaxtooyada liiskaasi oo dhameystiran iyo waliba hay'adda NISA
jaaniska ee heshay oo aan nuqul ka mid aan helnay waxaan idiin soo gudbin doonnaa goordhow hadduu allah awoodda le uu saamaxo dhammaantiin waxaan idin leenahay ilaahay ha idin xifdiyo ilaahayna umuuraha leediinaa sahlo allahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahlan fajcal umuurana wa umuur